tababarkani oo socday muddo dhowr maalmood ayaa loo qabtay 46 haweene oo ka kala socday magaalooyinka Hargeysa, Boorama, Burco, Ceere Gaabo, Berbera, Gabiley, Lowyacado iyo Wajaale, kuwaasi oo la barayay arrimo la xiriira wacyigelinta xanuunka HIV/AIDS-ka, habka uu u gudbo talasiinta xanuunka, daaweynta iyo daryeelka dadka la nool xanuunkaasi. Tababarkani oo ka dhacay Hotel Race ee magaalada Boorama ayaa waxa soo qaban qaabiyay Komishanka Xakamaynta Xanuunka HIV/AIDS-ka ee Soomaaliland. kadib markii la soo gabagabeeyay tababarkaasi ayaa waxa hadalka qaatay isla markaana faahfaahin ka bixiyay tababarkan iyo ahmiyadda uu xambaarsanaa agaasimaha tababarada iyo cududa shaqaalaha ee Solnak Commissioner Maxamed Jaamac Saciid. halkan waxaan ku soo xidhi doonaa tababar inoo socday in muddo kaasoo u socday biirka Soomaaliland oo ka yimid gobolka Soomaaliland taasoo lagu tababarayay laba qaybood. qayb waxa weeyaan dadka wacyigelinaya qaybta nugul taasoo tala siinaya wacyigelin siinaya iyo qaybta labaad oo dadka ka shaqeynaya cusbitaalada ee loo yaqaan case management-ka taasoo ah tala bixin dadkeena la nool xanuunka qofkii in la siiyo muxuu ahaa tala bixin ku saabsan sidoo dawada u qaadanayo ka dawada ka tagay lagu soo celiyo in la dabago in follow up lagu sameeyo xaaladihiisa qaybtaasina shaqadaas insha Allah qabataa oo inuu qofku dawadii joogteeyo inta dawaduna waxa weeyaan waa dantiisa ugu weyn qofka marka aad baan idinka mahadnaqayaa idinkoo dhamaantiin hore u soo shaqeyn jiray bulshadiina Soomaaliland u soo shaqeyn jiray inaad shaqadii aad hayseen aad ku dabaqdaan siina wanaajisaan oo ay noqoto shaqadii aad hayseen mid halkaas sare looga sii qaado insha Allah tababarada ma isku soo noqon doonaa horena waynu wada shaqeynay biirko imika muddo 4 sano ahaydba marba inta ka soo gaadhay wala shaqeynayay komishinkuna waxa weeyaan gacmihiina iyo laguhiina dhagihiina wuxuu u taagan yahay daryeelka bulshada Soomaaliland nooc kasta ay tahay mid caafimaad qaba iyo mid xanuunka la nool labadaba way shaqeynayaan ka xanuunka la nool waxa lagu shaqeynayaa in la daryeelo xuquuqdiisa la ilaaliyo la taageero la dhiso ka kalena in laga wacyigeliyo oo la yiraahdo saas ugu shaqeynaya insha Allah waad maasantiin dhamaan waxaan si aad ugu mahadnaqayaa tababaraha oo nin aad khibradiisu u sareysa oo si wanaagsan ugu soo gudbiyay waxaan kaloo mahadcelinayaa hay'adda Soifo waxaan kaloo aad ugu mahadcelinayaa tiimkiinan mutadawiciinta ah mutadawiciin baatiino bulshadiin ayaad si mutadawacnimo ugu shaqeynaysan u adeegaysan taasina inay xaqiisa waxaad ka helaysaa jiray xasanaad waa inuu qofku saa u dareensanaa soo ogaada waa Cabsalaan Bashir Farax Cabsalaan Saha warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Boorama.